Jawigu waa mid aad u qurux badan, jacaylkuna waa dareen aad u macaan. Dadku waxay dhahaan jacaylku sabab la'aan ayuu qalbigaada ku beermaa. Haa, waa run, sababtoo ah sabab la'aan ayaad qalbigayga degtay. Helitaanka jacayl dhab ah in la helo ma ahan wax adag, balse waxa adag in la joogteeyo. Weligay ma dareemin jacayl ilaa aan adiga ku arkay maahee. Saaxiibtinimadu waxay horseedaa jacayl, jacaylkuna wuxuu horseedaa nolol cusub. Maalin kasta oo aan adiga kula joogo waxay noqotaa maalinta ugu quruxda badan noloshayda. Dadku waxay dhahaan jacaylku waa dab, laakiin anigu waxaan diyaar u ahay inaan wajaho dabkaasi marba haddii aan adiga ku helayo. Waxaan dareemay inaad tahay qofka aan dunida ka raadinayo muddo badan. Waxaad i bartay dhadhanka ay leedahay noloshu, waxaad i siisay farxad aan la qiyaasi karin, waxaad ii dhammaystirtay riyadeedii qabyada ahayd. Soo ma ogid inaad tahay dhammaystirkii noloshayda, riyadii mustaqbalkayga, rajadii naftayda, farxaddii qalbigayga, aragtidii indhahayga, dareenkii wadnahayga. Runtii waxaad tahay ruux aan doortay aniga, dareenkayga iyo qalbigaygu uu raacay. Uma maleynayo inuu jiro ruux aan kugu doorsanayo intii daa'im uumay adigaan kaa doortay u hadaaqdaa naftaydu. Ma aqaano waxaan ku dhaho, mana aqaano waxaan kugu mahadceliyo, balse waxaan qirayaa inaad tahay adduunkayga oo dhan. Waxaan sidoo kale qirayaa inaad tahay qofka i baray jacaylka, dulqaadka, naxariista iyo farxadda. Waan ogahay inaan helay ruuxdeeda u ah nolol oo aan weliba si waali ah u jeclaaday. Adigu waxaa tahay tan ugu qaalisan adduunkayga, tan ugu yaabka badan adduunkayga, iyo tan ugu quruxda badan noloshayda. Waan ku jeclahay.